السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسن عيد وناكسن عيد وناكسن كل عام وأنتم بالخير. كسو دواد مغالسة هل كان وحن حنبلي قدرية عيد كستو مسلمة قف كستو مسلمة قارحان ومد الصوماليات ميل كستو الدنيا دك جوكتان وهان لا يهي عيد وناكسن كل عام وأنتم بالخير. halkan waxaan mar kale haddana ta'asii aan ugu dirayaa cid kasto bishii Ramadaan ku dhaaftay si ciyaara oo baadil ah ku dhaaftay ayaan halkan mar kale ta'asii ugu dirayaa. waxaan leeyahay Ilaahay ha idin haristo sababtoo ah 30 maalmood haddii ay kugu dhaaftay si ciyaara baadil haddii kugu dhaaftay والله وبالله وطالله waxa ku dhaafay amal la samaysto markii uu qiimaha badnaa ayaa ku dhaafay sidaas daraadeed waxaan ku leeyahay taasiibaan ku diraya Ilaahay dambigaaga ha dhaafo Ilaahayna u toobakeen bishii Ramadaan waa ku dhaaftay ku soo dhawaada bishii Sawaal run ahaantii bishii Ramadaan waxa ahayd bilaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala umadiisu ku manaystay waa bishii ugu khayrka badan waa bishii acmaasha waa bishii sadaqada waa bishii dambi dhaafka Ilaahay dambigan ha dhaafo Ilaahay dambigan ha dhaafo caawa xisaabta ku darsada cadawgii muslimiinta cadawgii bani aadamka cadawgiisa dhaafay shaydaan caawa ayaa haraga laga furay. cid kasto oo dunida joogta maanta waxay ka dambeeyay waxay isla kowsan doonaan ibliiskii weynaa shaydaankii weynaa ba isla kowsan doonaan. haddii adigoo lagaa xiray shaydaankii ugu weynaa adigoo lagaa xirayba haddii ay ku dhaaftay bisha barakaysan oo qiimaha badan haddii si fudud kugu dhaaftay 30 maalmood haddii si fudud kugu dhaaftay oo waxa ku dhaafiyay ay ahaayeen shaydaamada aruurtiisa ay kula joogeen intaas kaliya haddii maskaxda ay mashquuliyeen oo maartay 30 maalmood ay ku dhaafiyeen ka waran haddii lagu soo fasaxo cadawga ugu weyn waa ibliis waa shaydaan haddii lagu soo fasaxo sidee rabtaa inaad iskaga dhiciso Ilaahay dambigan ha dhaafo. run ahaantii bishii Ramadaan bishii barakaysan ee Ramadaan la soo dhaafay oo caawa bishii Shawaal ay koow tahay qof kasto dunida jooga siyaabo kala duwan baa loo soomay siyaabo kala duwan baa loo afuray. dad baa afur la'aan ku dhacday dad baa maartay saxuur la'aan ku dhacday dad baa xitaa labadaba aan helin dad baa korkooda dagaal ay xabada ku socotay dad baa waxa ku afuraan waayay dadna intuu Ilaahay rizq siiyay maal Ilaahay siiyay xeer waxay ka gaareen antay ka dharkeen ay laamiyada ku daadiyeen banaanada ku daadiyeen. wallahi ma Ilaahay ajar laga kabsaday oo ajar laga samaystay oo dambin laga kororsaday. maanta waa la garan waayay in dadka masaakiinta oo gaajisay inaan afurkeen iyo sahuurteen waxa ka siina waa la garan waayay. ilaahu dambigeena noo dhaaf ilaahu dambigeena noo dhaaf. mar kale waxaan idin leeyahay kullu caam wa antum bil khayr. halka hanoo joogto maantay halkiisa wixii ka dambeeyay waxa laga yaabaa muuqaalka inaad aragtay. ما هي عاصمة إسرائيل؟ جهنم. نعم؟ عاصمة إسرائيل هي جهنم. أنت عندك مشكلة مع إسرائيل يعني ولا شنو أنت مشكلتك؟ caasimatu Israa'iil waa hagee wiilka su'aasha la weydiiyay wuxuu ku jawaabay jawaabta ka dhigay jahannam. maantay wiilashan Afrikaanka ah xeer waxa la gaarsiiyay maantay bariga dhexe iyo cid kastoo lahjada Arabiga tagaani mise luqadda Arabiga tagaani inay maanta wiilashan meel kasta ay joogaan ay la dagaashan yihiin oo aan hubo haddii arki lahaayeen ay dubi lahaayeen. laakiin
ereyga yarka oo wiilka ka soo baxay oo ahaa caasimadooda waa Jahannamo inay Jahannamo tahay cid kastoo muslima way xaqarsan tahay way og tahay sababtoo ah markii la joogo bariga dhexe markii la joogo waa ummadda kaliya cadaabka lagu riday oo la cadaabayo oo lagu fiirsanayo oo carab ay ku fiirsanayso cajab ku fiirsanayso oo cid kasto maanta isku diin ahaayeen ay farqooda ka baxeen ay lagu fiirsaday waa ummadda muslimiinta Falastiin ilaahay uleeskooda iyo maartay dhibaatada lagu hayo ilaahay ka dulqaado dhibaatada reer Falastiin lagu hayo mid lamid ah annaka hadaynu Soomaali nahay annakayna haysata sababtoo ah wixii maanta gartay unug 4 jira masa aruur 5 jira masa 6 jira wuxuu uu gartay hadday maanta garan la yihiin dad waaweyn oo 70 jira 90 jira hadday garan la yihiin oo anta garatayna maanta qaab ay u hadlaan iyo si u hadlaan aysan garanaynin oo hadday dhawaaqaana ay ka baqayaan in maartay lugahooda la isku dhufto wixii maantay unug 6 jira uu gartay ilaahay baan kugu dhaariyay cadowga ugu weyn dunida markii loo fiirsho Afrika markii la joogo cadowgeedu waa Ethiopia bariga dhexe iyo Aasiya Yurub markii la joogo cadowgeedu waa Israa'iil ka soo tag Mareykan waxa gumeystay Ingiriis ka soo tag cadowga ugu weyn dunida waa labadaas marka aan ku leeyahay wixii uu gartay unug 6 jira uu gartay marka aan leeyahay wiilkan No, I'm Ethiopian. No, I'm joking. Somali waahay. Somali oo ka hadlay. unugan saad al arkaysiin wiil bay is salaameen markii salaanta laga qaaday ayuu wuxuu ku dhahay yaa tahay markaasuu ku yiri Ethiopia unugii waa ashxaatay wuu array markaas kadib intuu afku badashiyo Soomaali baan hay soo laabo wixii unugan uu gartay unugaanay da'diisa kama badno 10 sano hadduu gaarin kama badnaba wixii unugaani uu gartay hadday maanta siyaasi aruurtiisa wixii u gashay waxa uu ka soo jeedo dhammaantood intuu qurbaha geystay oo maantii nooga dul heeftaynayo nooga dhigay Ethiopia inay gacal keena tahay bas Ethiopia ay rabto inay horumar keena ay rabto ninkii maanta ka dhaadhacsan maskaas ay ku jirto wallahi qofkaasi maanta wuu maqayay boqolkiiba wuu maqayay sababtoo ah Ethiopia markii Afrika markii la joogo waa dawladda kaliya aan la gumaysan wiligeed aan la gumaysan markii la joogo Afrika waa Ethiopia sidaas daraadeed dawlad kasto aan la gumaysan masu gumaysi la'aan ay soo martay dunida meel kasto ay ka joogto xereerigeeda maartay xuduud kasta dawlad ay leedahay mar kasto dhabay ku haysaa waliban waxay u jilacsan tahay dadka ugu tabartiya dadka ugu tabartiya Ethiopia aan ognahay dhibaatada ay nagu hayso mase dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ay ku hayso la og yahay oo dhul Soomaaliyeed oo xoog awlbu ku haysatay laga qaadi waayay ilaa hadda xoog ku haysato oo shacab Soomaaliyeed ay gumaadayso oo maantay antay qariirada antay nagu dartay leedahay Soomaaliya anteeda kale waxay ka mid tahay waa gobolka mada Ethiopia oo marro qariirada nagu daray dadkii hoggaanka noo ahaa masana hoggaaminayay masa madaxda noo ahaayeen 24 sano oo kudbayna ay leeyihiin Ethiopia daris baynu nahay inaan is ilaalino Ethiopia daris aynu nahay inaan is ilaalino sharciga dhigay wixii unug 6 sano jira wixii uu gartay hadii maanta ay garan laayihiin dad maankooda uu joogo maskaxdo ay joogto oo uu yaraan da'dooda ay tahay 67 ay jirto wixii unugan uu garan waayay maanta ninkii garan la ilaahay iimaankiisa ha keeno maskaas ilaahay hasugo bariga dhexe markii la joogo waa muslimiinta kaliya cadaban la dhabaataynaya oo maanta carab iyo cajab iskugu tagtay waliba dadkii isku diinta ahaayeen ay ka filayeen inay u gurman doonaan ay ka filayeen maanta cadowgii antay garab ku siiyaan oo xubka la siinayo kobaha la siinayo oo rasaasta la siinayo
oo maanta xeer la gaaray dadka keliya dariska yihiin oo maartay dariska u yihiin oo maartay ay islahaayeen ama ay garab ka heli kartiin aad u dhawaan kartiin ya dawladda yahuudidaas oo maartay marna muslim noogu soo gambanayso ya oo daris kale ah oo ilbaabada ka xiratay dunida waxaa jira hay-ad la yiraahdo hay-adda xuquuqda bani aadamka Israa'iil dhibaatada ay ka geysatay dhulka Falastiin cid kasta way ogtahay oo taxaar la gaarsiiyay shacabkaasi waxa ay ku afray ay noqotay geeda caqaar calaanta inta la kariyay lagu cunayo oo lagu afray ilaahay baa idinku dhaaray ciqaab antaa lacag oo dadkii la sheeganay muslimka la sheeganay ay ka aamuseen isa ka hadli karin ya oo cidii ka hadashana ay maantay ka baqayso mas dawladii ka hadashana maanta ay ka baqayso in dhibaato loo geysto xeer maanta waxaynu maraynaa lagu yiraahdo dalalka dunida markii adig aad joogto hadii dhalasho warqad lagu siinayo waa inaad u aqoonsan tahay Israa'iil inay tahay dawlad rasmi ah dunida ka taliso ya adigoo dawladdaasi u qarin inay dawlad rasmi ah taado u qarin aad ka helin passport warqad dhalasho ah qasab lagaaga dhigay waa inaad dawladda aqoonsata ilaahay umadaasay dambiga laga galay dhibaatada laga galay dambiga lagu hayo iqaabta lagu hayo ilaahay baa ka dulqaadi kara ilaahay ka dulqaado ilaahay baan ku baranay ilaahay ka dulqaado qof kasto muslima meel kasto joogana waxa waajib ku ah umadaas inuu u duceeyo ilaahay dambiga ha dhaafo ilaahay anti la dileena ilaahay qabrigooda waa ugu dhigo ilaahay labada cadow ee Afrika iyo bariga dhaha ilaahay ummadda ka qabto كل عام وأنتم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته